ceelbiyoodka deegaanka Orbogays ee gobolka Sool ku tiirsan yihiin xoolo dhaqato tiro badan oo ku kala nool deegaanada gobolada Sool, Sanaag iyo deegaano kale ayaa xilligani waxa ka cabaya xoolo tiro badan. Odayaasha ceelka gacanta ku haya ayaa shabakada Daldoon uga warbixiyay xaaladda ceelkan. Shaqaale ceelkan sax anigu magacaygu Waaliyada Abdurrahmaan Maxamed tiba weyn alaygu nooleysa Maxamed Jaamac Ismaaciil oo lagu naanayso Gaabi ma isna kaliya ku xigeen kaliyaashu iska baday ceelka haday Soomaaliland ay adaha Ilaahay nagu gargaara iyo kaanu ka baqtiinaa xaqiiqiya halkana waxa weey hay'adihi samafalka ay kamid ahaayeen bishaas qeyrtaas SRC ay kamid ahaayeen iyo hay'adihi kale ka horeeyay waxaanu leenahay waxayna bari horta inaga deyn saasaanu eegnaan motoraan u baahanahay guriyaan u baahanahay waxaanu u baahanahay meeshii waa ballaaratay xiriir bay noqotay in ceelka xoogaa magaalada laga yarfogeeyaa oo aanu beeb helaa waanu doonaynaa ceelku ku qodan yahay meel kasta waad geysan kartaa motorada hadeer waa laba ceel waa laba motor hadeer mid baa shaqeeya kii kale u fadhiya xagga shidaalka waa cidhiidh dhiibsi boostada malyan iyo dheeraad bay nagu tagtay $400 $300 hadeer $700 $150 maraysa marka motorro kale ma haystaan isbeera ma haysano kaasayayna marka kaanu leeyahay hadeer fadhiis baana la soo gaarnay marka hay'ad Ilaahay meel nooga soo dawiya ceelka ilaa goor buu shaqeeyaa subaxii ilaa ceelku wuxuu shaqeeyaa marba baa afar gobol bay isugu yimaadaan xoolo afar gobol Sool iyo Sanaag iyo Bari soo garan maysa iyo togdheer afarta gobol bay isugu yimaadaan mar waa dhulka hawsku ku haraaway lamana kala leh biyaha afarta gobol hadday isugu yimaadaan nama yiraahdo war naga tagad hadeer waxa jooga kii Bari gobolkii badaxooloodii baa jooga soo garan maysa kuwii ka yimi meesha la yiraahdo qarashadooda baa jooga oo caba oo la mid ah ummadda nabadgelyaduna waa taam waxayna nabadgelyadaas ku soo dadka deegaanka ee waayeelka ee jooga baa ka shaqeeya nabadgelyada annaka ceelka joognaa waanu u qornaayo mid ma dhaafino kii amidadiisa tiida waxaanu adeer meel biyalaa oo laba maalmood annaka warbixintayda waxa weeye waa nooca waxaanu leenahay haddii aad tihaan weriyayaal waxaanu kaga shaqeynaa hadeer 4 nin waanu kaga shaqeynaa marka ma jiraan lacag laga qaado geela iyo xoolaha qusum baa laga qaadaa shidaalka lagu bixiyo tuludii waxaanu ka qaadnaa boqolkii halaad waxaanu ka qaadnaa 250 hal laygu beeniyo marka la isku celiyo tiradii ariga ahayd waxaanu ka qaadnaa 30 ama 25 boqolkii neef ariga ah soo garan maysa baanu ka qaadnaa ninkii igu beeninaya igu beeniyo hadeer waa la waxa weeye shidaalka iyo masaariiftu aan dheeli tirayn